رحيم وايد السلامي دمان بالشوين Soomaaliyeed meel kasta ay joogan halkan waxaan ku duubayaa gabay la yiraahdo fariin xildhibaan magacaygu Yuusuf Awaale Faande gabaygu wuxuu leeyahay xildhibaan baryahan doorasho loo xarbiyay qof walba xilbu doonaya lagu xasuustay aniguna waxaan ku xusho xilalka ku saaray xaqa shacabka inaad ortid baan ku idmaday xaakim xaq ilaahay kugu aaminay lacag xaalaynin oo la rushintaad xabstaan tuuka noo xirina shisheeyaha kuwii xeebtayada xeelada u siiyay oo dumarka xabsho arbaha xoolo uga yeelay oo wada xildoona fadhiya xariiq iyo tuuga dalban xilkiisa hayo goor xadeymooy shariifka xogta laga hayaa oo xilka u taagan xamar buu ka dhacay qaraxanuhu kama xumaadeen isliiba xabad laga riday in xanuun badan xasan baraf ayaa nagu lahaa sheeko xumadiisa xaraamiye hamiin kale xaadir ah jiree xubbi uma qabaan nabadda oo waxin jiro dhuuqe dawladnimada waa ka xun yihiin iyo halkan gaarnay haddii weer xafiis iyo raba xaakim laga yeelo xoolahaba inuu wada cunug xukumayaa ayaguna xaqiiqdii midkaas xarf ma dhaamaan xubiyuusan ka qaban kuwa xaday danteennii xalaal meeratada si codkii madaxda noo xaaray farmaajana xilka u dhibay sagan xaas noqonayn xabsiyada ka soo gurub kuwa gaalada xaraysay xorinaanu nahay kiina baray iyo xuduudkeena xarbikii u galay dawladnimo ciidan iyo xoog leh xorowda Soomaalida iyo xilalka noo saar maandeeqan xiganay markale xilalka noo saar xidigahan gaarnay markale xilalka noo saaray nabad iyo nolol guul ha guulaysato